diyaarad sida meydka gudoomiyihii gobolka Banaadir injineer Cabdiraxmaan Cumar Yariiso ayaa daqiiqado kadib waxay ka soo dagaysaa garoonka Aadan Cadde iyadoona aas qaran loogu sameynayo magaalada Muqdisho. Haddaba wariyaheena Farxaan Maxamed Xuseen oo ku sugan garoonka ayaan ka wareysanay. Maxamed waa maasan tahay waxaan ku suganahay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho halkaasi oo lagu sugayo diyaaradii keeni lahayd gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahaana duqii Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Yariiso kaasi oo maalmo ka hor ku geeriyooday dalka Qatar isla markaana dhaawac ahaan lagu qaaday magaalada Muqdisho oo dhaawac uu ka soo gaaray qarax ka dhacay xarunta dawladda hoose Xamar halkaasi dalka Qatar markii dambe uu ku geeriyooday. waxaa ka socota garoonka diyaaradaha iyo iskool bulsiya qabanqaabada aaska qaran loo sameynayo gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahaana duqii Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Yariiso. waxaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ku sugan xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir waxaana la sugayaa diyaaradii keeni lahayd gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir. sidoo kale saacadaha soo aadan ayaa la filayaa sida mas'uuliyiinta dawladda ay sheegeen in ay soo dhigto diyaaradii keeni lahayd gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir oo ku geeriyooday dalka Qatar. dib u dhac ayaa ku yimi furitaanka shirka dib u heshiisiinta beelaha deegaanada maamulka Galmudug. Maxamed Cabdiweli Tooxow ayaa warkan Dhuusamareeb nooga soo diray. guddiga dib u heshiisiinta Galmudug ayaa la filayaa inay shaaciyaan inuu dib u dhacay xilligii uu furmi lahaa shirka dib u heshiisiinta beelaha deegaanada Galmudug. xubno ka tirsan guddiga oo aanu la xiriirnay ayaa inoo sheegay dib u dhaca ku yimid shirka inuu yahay beelaha qaar oo tabasho qaba isla markaana la xalin doono waxaana guddiga ay sheegi doonaan xilliga rasmiga ah ee uu furmayo shirka dib u heshiisiinta beelaha deegaanada Galmudug. hayeeshee guddiga dib u heshiisiinta Galmudug oo odayaasha dhaqanka beelaha deegaanada Galmudug horay ugu baaqay inay qayb qaataan shirka dib u heshiisiinta ee Dhuusamareeb ka furmaya ayaa haatan waxaa muuqata in Dhuusamareeb wali aysan soo gaarin ergooyin ka qaybgalaya shirka dib u heshiisiinta beelaha deegaanada Galmudug balse dhawaan ay ahayd markii odayaasha dhaqanka gobolka Mudug ay sheegeen in shirka nabadda ee ka soconaya xilliga kani magaalada Hoobiyo ee aan la soo gabagabaynin ay soo gaari doonin magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug iyadoona shacabka ku dhaqan deegaanada Galmudug gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb kuwa ku sugan ayaa si aad ah walaac uga muujiyeen dib u dhac ku yimid shirka dib u heshiisiinta beelaha deegaanada Galmudug oo horay guddigu u sheegay in 5 bishan Agoosto uu ka furmayo magaalada Dhuusamareeb. Maxamed Cabdiweli Tooxow, idaacadda Kulmiye, Dhuusamareeb. Puntland ayaa waxay sheegtay in ay sharci darro garow ugu xiran yihiin dhalinyaro ku eedeysan burcadbadeednimo sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Liibaan Nuur Xasan. wafdi ka socday dowladda federaalka Soomaaliya oo hogaaminaya gudoomiye ku-xigeenka koowaad aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Abshir Maxamed Axmed Abshir Bukhari iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland oo ugu horeeya wasiirka cadaaladda Puntland iyo xeer ilaaliyaha guud ee maamulkaasi Maxamuud Xasan oo Cismaan ayaa kormeeray maxaabiista ku xiran xabsiga weyn ee magaalada Garowe. maxaabiista ku xiran xabsiga Garowe ayaa tiradooda lagu sheegay 48 ruux waxaana laga soo wareejiyay dalal ay ka mid tahay jasiiradda Seychelles oo iyagu xukun ku riday iyadoo lagu heshiiyay in xukunkaas ay ku dhameystaan xabsiyada deegaanada maamulka Puntland. xeer ilaaliyaha guud ee maamulka Puntland Maxamuud Xasan oo Cismaan oo warbaahinta kula hadlay gudaha xabsiga weyn ee magaalada Garowe ayaa sheegay in xukunka 48 eedeysane oo loo haysto falal la xiriira burcadbadeednimo kuna xiran xabsiyada deegaanada maamulka Puntland ay xaqdarro ku xiran yihiin. waxa uu sheegay in Puntland inta tabarteeda ay dadaashay sidii maxaabiistaasi Soomaaliyeed oo xaqdarrada ku xiran ay u heli lahaayeen xorriyadooda isagoo dowladda federaalka ee Soomaaliya ka dalbaday inay maxaabiistaasi dib ugu celiso xorriyadeeda kana shaqeyso sidii xeerarka caalamiga ah looga gudbi lahaa. gobolka Nugaal Garowe uu soo booqday wafdi hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare xildhibaan Abshir Bukhari waxay rabeen ujeedka socodkooda ahaa inay u koorgalaan xaaladda xabsiga gobolka Nugaal gaar ahaan maxaabiista ku xiran laga keenay dalka Seychelles oo
ku kala xukuman xabsiyo dhaadheer oo kala duwan maxaabiistuna waxay siiyeen dareenkoodii wixii ay qabeen ayay u gudbiyeen insha allahu dareenka ay u gudbiyeen ayaan wax ka rajaynaynaa inay qaadaan oo ay weliba jawaab soo siiyaan maxaabiista oo muddo dheer xabsiyada puntland ku jira ilaa 2012 ilaa haddeer baa qaarkood ku jira xabsiyo dhaadheer bayna ku xukuman yihiin hadalka xeerilaalyaha guud ee maamulka Puntland ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmo ka hor xabsiyada magaalada Hargeysa ee xarunta xukuumadda Soomaaliland laga sii daayay 19 maxbuus oo madaxweynaha Soomaaliland uu cafis u fidiyay kuwaas oo laga soo wareejiyay jasiiradda Seychelles siideynta maxaabiistaasi ayay Seychelles Somaliland ku cambaaraysay iyadoo madaxweynaha Somaliland ku cambaaraysay cafiska uu fidiyay maxaabiistaasi oo iyagu 9 sano ku xirnay xabsiyada magaalada Hargeysa. maamulka Jubbaland ayaa iska fogeeyay eedeymo ay u soo jeediyeen odayaal dhaqameedyo ka soo jeeda maamulkaasi. Cabdullaahi Nuur Cali ayaa ka waramaya. iyadoo maalmihii u dambeeyay taagnayd caawasho ay muujinayeen odayaasha dhaqanka Jubbaland taasoo ku aadan amni xumo soo wajahda odayaasha oo sheegeen inay isaga baxeen magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose maadaama ay sheegeen in hujuun ay kala kulmeen ciidamada Jubbaland. waxaa warkaasi beeniyay wasaaradda amniga maamulka Jubbaland iyadoo sheegtay inaanay waxba ka jirin warka odayaasha dhaqanka ee ku aadan cabsida ay sheegeen in uga baxeen magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. afhayeenka laamaha amniga maamulka Jubbaland Cabdinuur Ibraahim Xuseen oo la hadlay idaacadda kulmi ayaa sheegay inaanay waxba ka jirin hadalka odayaasha ee ah inay weerar iyo hanjabaad ay kala kulmeen ciidamada ammaanka maamulka Jubbaland. waxa uu intaas ku daray in maamulka Jubbaland uusan u taagnayn dhibaateynta odayaasha dhaqanka isla markaasna ay u taagan yihiin inay sugaan ammaanka odayaasha soo xulaya baarlamaanka Jubbaland. wuxuu hadalkiisa ku daray in wadada warxumada shiil ay baahinayaan warkaasi oo ka soo horjeeda maamulka Jubbaland. والله ما سنتهي waxaan ku cadeynayaa aan ku xaqiijinayaa shaqada kala aaday sheegay kaaga khaldi karin cid gaar ah oo amniga qalqal gelisa ama dhibaatayso ama odayaha ahaada ama ganacsi ahaada ama siyaasi ahaado shacabka Soomaaliyeed lidku ah Kismaayo ama Jubbaland ma joogan. ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland waxaa loo carbiyay qaabka cadawga looga hortago amniga loo sugo ninkii amniga la sugayo cadawga la beegsanayo oo la sheegay ninkii ay dhibayso amnigan nabadda ka hor imaatan waa halkiisa oo nooc kale u fasirtay waa dhihi karnaa laakiin haba yaraatee cid guri looga dhaxay ama la dhibaateeyay ama amni la qalqalgeliyay Kismaayo ma jiro. walaal waa maasan tahay waxa ay waa been wax ka jiro ay abuurna ma jirto. odayaasha Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Kismaayo ee Jubbaland ee dhaqanka ay soo xulaya baarlamaanka waa la yaqaanaa waa dareemi kartaa oday aan dhaqankii dadka soo xulitaanka aan ku jirin oo asaga caqabad kale iyo dhibaato kale ku wada inuu wax aliftay waa macquul laakiin haba yaraatee odayaashii dhaqanka ee soo xulayay baarlamaanka 75 xildhibaan wax caqabad ah ama wax dhib ah oo amnigooda iyo degenaanshahooda iyo noloshooda saaka ku wajahan ama Kismaayo ay joogeen ay la kulmeen ma jirto. hadalka afhayeenka Jubbaland ayaa imaanaya xilli qaar kamid ah odayaasha dhaqanka Jubbaland oo qaarkood la soo xiriiray idaacadda kulmiye ay sheegeen inay ka baxeen magaalada Kismaayo sababo amni xumo darteed iyagoo guryahooda ka maqan ay tagaan ciidamada ammaanka oo raadinaya odayaasha dhaqanka. waxaana sidoo kale marar hore dhacday in maamulka Jubbaland uu soo masaafriyo odayaal dhaqan oo ku sugnaa magaalada Kismaayo. shirweyne xal loogu raadinayo colaadda Soomaalida iyo Oromada ayaa maanta waxa uu ka furmayaa magaalada Jigjiga. Maxamed Cali Maxamed ayaa ka waramaya. magaalada Jigjiga ee gobolka Soomaalida Itoobiya waxa maanta lagu wadaa inuu ka furmo shirweyne xal loogu raadinayo colaadda u dhaxaysa Soomaalida iyo qoomiyadda Oromada ee halkaas in muddo ka taagneed. madaxweynaha maamulka Oromada ayaa shalay gelinkii dambe tagay magaalada Jigjiga iyadoo halkaas lagu soo dhaweeyay waxaana halkaas uu tagay ka qaybgalka shirweynahaasi lagu dhameynayo colaadda u dhaxaysa Soomaalida iyo qoomiyadda Oromada. waxaa maanta lagu wadaa halkaas inuu ka furmo shirka iyadoo ay ka qayb galayaan 700 oo ergo oo ka kala imaanaya Soomaalida iyo Oromada. in muddo waxa halkaas ka taaganaa dagaal u dhaxeeya Soomaalida iyo Oromada. madaxweynaha maamulka Soomaalida
Ethiopia ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Mustafa Maxamed Cumar Cagjar iyo madaxweynaha maamulka Oromada ayaa xalay waxa kulamo ay ku yeesheen magaalada Jigjiga ka hor inta uusan maanta shirka furmin. Shirkan ayaa waxa ka qayb galaya nabadoono ka kala imaanayo qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromada iyadoona xal ay u raadinayaan colaadan in muddo halkaasi ka taagneed. Soomaalida degta dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo qoomiyada Oromada ayaa in muddo waxa ka dhex taagnaa dagaalkaas oo ku saleysan arrimo dhul daaqsimeed. warka subax ee Keenan ayaad wali dhageysanaysaan. ugu yaraan 20 ruux ayaa dhimatay halka 26 kalena ay dhaawacmeen kadib toogasho ka dhacday magaalada El Paso ee gobolka Texas dalka Mareykanka. Gudoomiyaha gobolka ayaa ku qeexay waxa dhacay mid kamid ah maalmihii ugu dhimashada badnaa taariikhda gobolka Texas. booliiska ayaa xabsiga dhigay nin 22 jir ah oo looga shakisan yahay mas'uuliyadda weerarkaasi. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa weerar ku tilmaamay mid muujinaya daciifnimo. madaxweynaha dalka Mexico ayaa dhankiisa sheegay in dadka weerarkaasi ku dhintay ay ku jiraan 3 muwaadin oo dalkiisa u dhashay. weerarka ayaa yimi wax ka yar 7 markii toogasho ka dhacday California ay ku dhinteen 3 ruux. ugu dambeyntiina dhageystayaal kumanaan ruux oo ay ku jiraan dalxiisayaal ayaa iskaga tagay qaybta ay Hindiya ka maamusho gobolka Kashmir kadib markii ay heleen digniino dhanka ammaanka ah. mas'uuliyiinta dowladda Hindiya ayaa ka digay in uu dhaco weerar argagixiso kaas oo ka dhan ah isku imaatin diimeed oo ay diyaarad sida meydka